بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta halkan waxaan rabaa inaan iigu soo gudbiyo su-aal laysoo weydiiyay oo ahayd sidee loo qaybiyaa hard disk drive-ka ama sidee loo sameeyaa nacam partition, sidee hard disk drive-kaaga aad u qaybsan lahayd. marka horta computerka lasoo iibiyo oo cusub yahay kaliya wuxuu leeyahay C oo quraad. marka waxaad rabtaa inaad u samaysto sidaas diskee kale inaad samaysto tusaale ahaan D iyo E iyo inta loo taalo. marka sideed u qaybin lahayd oo u samaysan lahayd partitionkaas. haddaad rabto inaad ogaato waxaad dhigataa halkan computer, right click ku dhufo, kadibna manage dooro. runtii options badan baa ii bannaan. waxaan kaloo ka tegi karaa halkan start buttonka halkan tago computer, right click manage. soo kale option kale ii bannaan oo ah halkan inaan tago computer manage. intaas option baa ii bannaan. marka imika halkan ay bannaan computer, kadibna waxaad ka doortaa manage. markasan kugu soo baxo waxaad doorataa storage waxaad kasii doorataa disk management. halkan marka waxooga yar baad sugaysaa intuu soo baxayo. waa kan sidan ugu soo baxaya. marka halkan waxaad ka arkaysaa dhammaan diskeedaad lahayd. imika shaqsiyan waxaan leeyahay C, D iyo E iyo V baan leeyahay. markaad rabto inaad qaybiso halkan aad imanaysaa. halkan kuu soo dhigay dhammaan hard diskeeda disk drive-keeda. kasoo qaad tusaale ahaan imkaani V-daas ayaan qaybinayaa. V-da waa 30 GB. waxaan rabaa inaan 20 GB ku disto, 10 GB-na aan disk kale hard disk kale aan ku samaysto. markaad rabto inaad saas samayso waxaad imanaysaa kii aad qaybinaysay, right click baad ku dhufanaysaa, kadibna waxaad dooranaysaa shrink volume. taas ayaa waxooga yar baad sugaysaa sidana kuu soo baxo halkan shrink. halkan tirooyin ayaa ku qoran, tirooyinkan ayaa markaad joogto waxaad baahan xisaabiirkan calculatorkii la soo baxa. waa kan calculatorkii inta GB aad u baahan tahay inaad ka saarato ayaad ku dhufanaysaa. kasoo qaad tusaale marka tiradaas ayaad halkan ku qoraysaa. halkan ayaad ku qoraysaa sidan ilaaa 10240. haddaan rabno inaan qorno soo qorto 10240 markaa saas markaa ku qorto waa inta leedahay ayadan ku qoraysaa shrink sana kugu soo baxaya 10 GB qofka soo baxay qiimo laatan marka laakiin waa weli aan allocated lahayn. marka si aad dhamaystirto right click baad ku dhufanaysaa, waxaad dooranaysaa new symbol for your result. the next
raba GPA-daas inay kaa muuqdaan aniga shaqsi waxay ugu dhacday maalin aan u bixiyey letter jira ayaan u bixiyey marka waxay ga luntay 8 GB marka aad iyo aad bay muhiim tahay inaan letter aan bixiso si aan uga taxdirno phone hoose aan u bixino z baad bixin kartaa waa x marka aan w doorto marka w baan u bixiyey letterkii next baad ku dhufanaysaa sidaa ku daa marka magaca ayaad ka bedeli kartaa dhinacaas laakiin aan ku dayna new folder okay halkan waa tiradaa ku daa ntfs waxaan u qalbisaa inay sax saaran tahay halkan telephone quick format intaas markaad sidaa ugu dayso next ku dhufo haddana finish marka saa halkan ayuu noogu soo baxaya xoogiyar baad sugaysaa وكان healthy عمود الاستريان فورمات يمكن هو فورمات كرامي سيارة ترانسس فورمات كرامي يمكن هو فورمات كرامي مثل الدياب لكن الدياب مر لوات سي فورمات كرامي وفي عنها لكن formatting this volume with a really small data hit okay yes format dia new volume thing haddii aan keeno ka eegno computerkeena inoo soo baxay halkan waa c d iyo aan kala qaybinay oo new volume keena halkan ayuu noogu samaysmay marka saasuu noogu samaysmay halkan waa 20 GB tira ku dhow iyo 10 GB tira aad iyo aad u dhow marka waa sidaas saasaa loo qaybiyaa harddiskiga disk drive-ka saasaa loo qaybiyaa marka waxa muhiim haddii markaad sidaa qaybiso waad isticmaali kartaa haddii kasoo qaado saxaynta haddaan soo qaato pictureskan tagaya sawirkan aan soo koobi karaya kadibna aan yimaado new volume-kii aan samey okii halkan aan ku baas karayo sawirkiisana hadhinaca saasaad u isticmaalta toos marka waxa muhiima sideed mar labaad agsiga ugu sameyn lahayd imika waan kala qaybinay sideed macamadeed rabtida mar labaad ay ugu soo celiso sideed ugu soo celiso wasaskuu baad soo marsan kanan kale wasaskii unba soo marsan computer baad tirsan baad tirsan right click baad ku dhufanaysaa waxaad dooranaysaa delete volume aad dooranaysaa marka deleting volume erase all data dhammaan macluumaadka ku jira dhan delete garaysaysaa marka back up do you want to continue yes marka sidan uu soo baxay waa an allocate marka halkaan joogto waxaad tigaysaa diskigii aad markaad fiidiyaan kusoo celinaysa
okay halkan freeway right click baad ku dhufanaysaa waxaad dooranaysaa extend folder waxaad ku dhufanaysaa okay extend folder user okay next marka labaatan imika soddon toban GB kusoo darsan marka saasaa loo qaybiyaa hard diskiga marka intaan ku bixin haddii aan eego inta GB ay u banaanyahay 153 ayuu banaanyahay 103 konton meelahaas waxa muhiim ah inaad ku dayso space kaliya ama sidoo isku filan Windows iyo programmada aad